كدكتونو سدح الليمود كو اللي انت قفك اللدلميي لابو اللي انت اغونكا سدح اللي انت هويدا يا ابهابا هدي اد هوس دغتو مid kamida illimadan oo ay kugu dhacaan waxaad naftaada u furtay irida jahannama dhaawaca u geysan qof adiga ahaan ka weyn marka uu hadlayana hadalka ha ka jarin maxaa yeelay adiguba waxaad ahaan doontaa darajada hadda uu taagan yahay haddii aad aragto qof aad jeceshahay u dhoolacday wuxuu dareemi doonaa jacaylka aad u qabto haddii aad aragto cadawgaaga u dhoolacday wuxuu dareemi doonaa awooddaada haddii aad aragto qof ka tagay u dhoolacday wuxuu dareemi doonaa shalayto haddii aad aragto qof aadan garanayn u dhoolacday ajirkaaga ayaad heli doontaa qof fahma ayaaba iska yar markaad qof la kaftamayso misana aad qoraal ahaan ugu qorto kaftankaasi waxaa laga yaabaa inuu qalad u fahmo maxaa yeelay cabiradii aad ka cabiri lahayd wajiga iyo hadalkaaga qaabkaad u dhigi lahayd ayaa qoraalka ka maqan haddaba aad uga fiirso oo iska ilaali hadallada aad dooranayso marka dadka la hadlayso maxaa yeelay dadka badankood waa dad nafsaani ah oo hadalladaadu saameyn weyn ayay ku reebayaan waxaan ku jirnaa zamankii cajaa'ibta iyo la yaabka amiirku waxa uu qorayaa gabayada murugta faqiirkuna waxa uu qorayaa gabayadii farxadda raaxada adduunyadu waa inaad wadadaada ku noolaato adigoo sharciga Ilaahay waafaqsan ee ma ahan inaad dadka dushooda ku noolaato wanaaga in la inkiro waxay la micno tahay in qofka indhoolka ah jabiyo ushiisa markuu aragu u soo laabto kadib ha isku dayin inaad hubiso oo aad daba gasho shay kasta oo lagugu yiraahdo maxaa yeelay waxaad u fahmi kartaa qalad kadibna dad badan ayaad ku qasaaraysaa fikirkaaga awgi kaliya waxaad wanaajisaa malaha aad ka malaysanayso dadka kugu hareeraysan doqonku wuxuu ka hadlaa wuxuu sameyn doono qofka la kadiyeyna wuxuu ka hadlaa wixii uu sameeyay qofka caaqilka ahina waa uu shaqeeyaa waxna wuu sameeyaa mana hadlo wax farqiya uma dhaxeeyaan midabka cusbada iyo midabka sonkorta labadooduba waa isku midab balse farqiga waxaad ogaa doontaa markaad tijaabiso kadib dadkuna waa sidaa oo kale badana waxaa jiri doona qalbiyo aan ku nici doonin si kastoodan muhiimadda u siin iyo qalbiyo aan ku jeclaan doonin si kastood u karaamayso haddaba doorashadaada wanaaji badana dadka ka hadla ceebaha dadka kale waa dad aan ku baraarugsanayn ceebahooda aadka u waaweyn oo ayba ka mid tahay inay ka sheekeeyaan ceebaha dadka kale saaxiibadu isma bedelaan balse annaga ayaa ku degdegnaa in aan dad saaxiib laga dhiga karin ku magacaawno saaxiib oo aad ayaan uga xumahay markay lacagtu hadlayso xaqiiqadu waa ay aamusan tahay dadka qaarkood waa ay ka tagi doonaan noloshaadana waa ay ka faaruqi doonaan balse taasi ma ahan dhamaadka qisadaada ee waa dhamaadka doorkii ay ku lahaayeen qisadaada wax kale ma aha ma awoodid inaad shakligaaga iyo qaabkaaga bedesho si aad u noqoto waxa ugu quruxsan oo ay indhaha dadku arkaan balse waxaad awoodaa inaad maamusho oo aad xakamayso akhlaaqdaada aadaabtaadana qurxiso si aad u noqoto waxa ugu quruxsan oo ay indhaha dadku arkaan waxaa naga mida dad badan oo marka ay doonayaan inay degdegaan ku oranaya wanaagu waa kii la dedejiyo oo markay doonaanna inay dadka meermeeriyaan kugu oranaya wanaagu wuxuu ku jiraa in dib loo dhigo arrintu waa laba wajiilanimo ee wax kale maaha taladan iga hoo laba mar qof ha ka dalbanin waxaad u baahan tahay maxaa yeelay marka koobaad sharaf ayay ku tahay marka labaadna waxay ku tahay dulanimo markuu qofku weynaado qalinbiire ayuu wax ku qoraa ee ma ahan qalin rasaas ilaa uu ka ogaado in tirtirada qaladyadu aysan ahayn wax fudud waxaa jira waxyaabo wanaagsan oo aadan ku arki karin ishaada kaliya waxaa arki kara qofka quruxda ka raadinaya saxmadda dadka dhexdooda raaxada barkeed waa inaadan dadka kala dabagelin oo aadan ilaalinin aadaabta barkeedna waa inaadan gelin wax aan ku qusaynin dhaladu waa ay jabtaa codkeeduna si degdeg ah ayuu ku dhamaadaa waxaa sabaaqi noqda qaybihii jajabka dhalada oo qofkii taabta ama ku istaaga ayay dhaawac u geystaan hadalka dhaawaca lihina waa sidaa oo kale si degdeg ah ayuu ku dhamaadaa balse qalbiga ayuu xanuun ku reebaa haddaba ha ku hadlin ilaa waxaan khayr ahayn mooye oo raac dardaaranada sagaalka ah ee ku jira suuratul xujuraat ee ah sida loola dhaqmo dadka kow iska hubiya wararka la idin keeno oo ha ku degdegina labo wanaajiya dhaxdiina oo heshiiya saddex cadaalad isku sameeya
4 qofna qof yuu ku jeesjeesin 5 nafafkiina ha xumaynina 6 naynaasyada ha isku xumaynina 7 in badan ka fogaada malaha 8 ha isjaajuusina 9 qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin si wanaagsan u qeyb oo u xafid arrimahan kuna dadaal inta cumrigaaga ka dhiman ogowna dadkoo dhan inaad ka farxiso waajib kuguma aha balse waxa waajib kugu ah qofna inaadan dhibin يا نفس إن لم تظفري